مدن قدومي قرصور maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii 6 2025 waxa xafiiska xeelaanta maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobolada Nugaal iyo Sool maxkamadda horteeda keenay 8 sano oo dhamaantood ku eedeysan xeer lambar 10 oo xeerka la dagaalanka argagixisada dawladda Puntland sanaha koowaad Maxamed Xasan Maxamed ina Farxiyo Cabdulle 14 sano jira sanaha labaad Maxamed Cali Tuke ina Xabiibo Lamoog aadan 30 jira sanaha saddexaad Ibrahim Cali Karaan ina Hillo Xuseen aadan 20 jira magaca dhibanaha dawladda Puntland iyo shacabkeeda falka ku eedeysan waa argagixisada مدن قدومي قرصوريال إذا سنة صدحدا أركان رجحيسة خواريت الشباب وكتب يدقنا بورها لو يقام بور لذا علمدو وحلا قبت لا ثلاثة أفريقي سنة لا ثلاثة أفريقي آخر كذي وحلا يقبت مجال الجرو وجارهان كان ترى كبري حلو قال الغمانة وحي كي مادين بور لذا علمدو وحي هاي رحن ازدواج أو صعطة والله كونفورت الصومالية qaybtoodna ay u socotay deegaanada Puntland sida Garowe, Qardho, Boosaaso nasiib wanaag iyagoo wadada gooshiyo sheekaysi ummadda shacabka laamiga lagu targay qaado si nabad ku gudubto waxa lagu qabtay baabuur dhakadood iyadoo loo soo qaybiyay mid iyo laba iyo saddex sanayaasha saddexda ah waxay buuralada calmadow saarayeen muddo sanawaad ah 2 sano 3 sano iyo bar أنا كدر ريان سيدا يجوا الشيء وسنياشوا التلمام يا واحد لي دجال يجي 11 دحمري وصبين وواحد الله صدري شقوين كلها كقبتان دجالنا بونتلاند أما أما اللي سوى بدل كونفورت الصومالي قيبتهم أنت أمرك اللي جاي ماذا سنياشوا وسيك الحق شران وسنها نيك اللي يرى مجلس حركة على كلاي وحو أها أمير مجموع أما تليئون قوح لي هذا كلاي ومحا على التكاء سنة كلاي ومجلس عادي قال لي محا على التكاء وحو أها أمير مجموع أما تليئون قوح حكمي أو وتي ومدنا كانوا قال لي براء على المذو haddii la weerarayo deegaanada hoos yimaada buuraleyda calmadow ama gobolka Sanaag ha noqoto ama bari ha noqoto dhanka u janjeedo inta wuxuu ahaa nin isagu dheer labada eedaysane ee la eedeeyay hadda la socda la qabtay waxa uu dheer yahay iyagu waxay ahaayeen askar nimanka ka tirsan u shaqeeya operation loo dirifuliyo laakiin isagu wuxuu ataliyo unug buuxa oo shaqadii uu gacanta ku hayay inta uu shaqada gacanta ku hayay hal sano barka uu dhinac u riday meesha loo diray isagu uu sheegayo inuu tagay deegaanada ay ka mid tahay deegaanka Afur oo hal operation ka fuliyay waxa qiyaasayna ka badan inuu fuliyo oo geystay dhibaatooyin inta la mid ah mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamaddu waa maadsanta ma gelin waa galan dad sharci qaba hay gal waan ka soo baxsan naftii waan soo xarabay gashay naftii waan soo xarabay لو كنا نعتبر بالسجلات لو كنا نستحد بالشنات أنا لبكوا عادات بني وقفتين مركز مقصوع عادات سوي وقفتين حجبات بني وكلوا كل مي هذا واحد سديد بلوكنا جوب ناس سديد بلوك حاجة ونيس أسكر ميل دقن باين أسكر بروفيشن كان خاصة قاعد على الوتر بريكم ما أسكر يوحنا يا ودبلي قري آكل يوم تبدأ قالش قال ما قال سمعتي قرود هاني مش دقي والله كنت بريك ولا أسكري قرود هاني مش دقي يا عطيني أنا تصور حسين إنه دونك يا به وش يسدح بدنا لمر كذا لمر واكوي كل حياته أنا واقع dood aniga ka qaban waxay tahay waa tagay qofka bani aadin kan waa qaldamaya marka aniga meesha tagay naftarkayba dhibaato kale la ii geeysiday xabs waa la ihiray marka ay hireen dhibaatadooda iyo rafaadkooda iyo anigana inay qaldanahay is ogaaday baa ka soo bax waxa qof askari ee baa ahay moogi xilli baad ku beertay waxa galay 2020
labadii bishii shanaad 20 labadii bishii aragtay 2022 bishii shanaad ha xageed dugsiga tababarka uga baxay jilib halka maxaa ku teenay miyaa lagu soo beddelay halka may markaan tababarka soo baxay inta la ileeyo iyaga ku soo waday ha maxaa barfishka khaaska ma miiraysta lahay ma macnaha taliye ururada ciidanka aad haysatay muxuu qaabilsan may kuleeli ahay wax kale ma ahay askari la ah intee dagaal gashay may wax dagaal aniga galay ma laha